xiisad halis ah ayaa ka taagan deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud jidadka soo gala magaaladaas isla markaasna ka yimaada Cabudwaaq iyo Dhuusamareeb ayaa gabi ahaanteedba go'aan maanta waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan xiisadda Xananbuure iyo waxay salka ku haydo iyo sidoo kale macluumaadka ku gadaaman fadlan bogan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir saaxiibada halkan ku jirana ka mid noqo si aad u hesho macluumaadka halkan aynu ku baahino waqti kasta aynu ku bilownay deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud oo sanadihii tagaba xiisad dagaal oo qabaa'ilada wada dega halkaasi ay ka taagneed ayaa maanta waxa ka taagan xiisadaas mid ka bedelan waxaana xiisadu ay u dhaxaysaa maamulka magaalada Dhuusamareeb iyo dadka deegaanka xarun caafimaad oo ku tilay halkaasi ayaa dhawaan la doonayo in loo qaato shaqaale caafimaad waxaana maamulka Dhuusamareeb gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka magaalada Dhuusamareeb sida la sheegay shaqaale uu gacantiisa ku qoray uu geeyay xarunta caafimaadka degmada Xananbuure ee gobolka Galgaduud taas oo sababtay in dadka deegaanka ay ka caroodaan isla markaasna gabi ahaan maanta ay gooyaan jeedka soo gala magaalada Xananbuure ee gobolka Galgaduud sida muuqaaladan aad ka arkaysaanba waxa go'aan gabi ahaanba jeedka soo gala magaaladaas gaadiidkii u socday magaalada Cabudwaaq ee waqooyi gobolka Galgaduud ayaana ku xayiran halkaas isla markaasna rarka u waday sidoo kale gaadiidkii ka imaanaya Cabudwaaq ayaa isna ku xayiran duleedka deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud sida sawiradan oo goor naga soo gaaray Xananbuure ay muujinayaan dadka deegaanka waxay ka cabanayaan habka loo qaybshay shaqaalaha caafimaadka ee xaruntaas iyaga oo sheegay shaqaale uu gacantiisa ku soo qortay gudoomiye ku-xigeenka degmada waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug in laga soo buux dhaafiyay xarunta caafimaadka ee Xananbuure haddaba wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan fadlan haddii aad bogga ku cusub tahay mar kale ka mid noqo saaxiibada halkan ku jira